maamulaha shirkadaha Dahabshiil Group Cabdirashiid Ducaale ayaa ardayda jaamacadda Camuud waxa uu kala qayb galay munaasabadda qalin jabintooda oo noqonaysa dufcaddii 22aad. maamulaha ayaa ardayda ku dhiirigeliyay hal-abuurka ganacsiga iyo xoojinta nabadda waxana uu yiri aad baan u arkayaa nasiib badan ahayd kala soo qayb qaato xafladana idinku leedihiin ee maanta ah ka aad u graduate garayseen taasoo ku dhalatay tacab aad geliseen oo maalin iyo habeen baad ka shaqaynayseen inaad graduate garaysaan. ilaahay digriga idinka dhigo digri khayr qaba mid aad ku guulaysataan mid dalka iyo aqoonta iyo cid walbana sii kordhiya. waalidkiidin dhalay ee halkaa ku faraxsan la'aantood aydan digriyada maanta qaateen aan idin suurtagal ilaahay ka sukro iyagana sidaas leeg waynu u hambalyeynaa in uu ajarka ka siiyo dadaalka ay sameeyeenna aad faa'iidadeedii aad wax ku tari doontaan waalidkiina. tacliintu waynu ognahay qiimahay leedahay ama jaamacaduhu anigu markii aan yaraa jaamacad waddanka way jirin idinku nasiiba u yeelateen inaad waddankiina jaamacada ku barataan oo aad ka heshaan oo aydan u baahnayn inaad qurbaha qabataan. waxaasoo kaloo jira digrii qayb buu ka yahay horumarka laakiin maaha midka ka dhigaya complete. digrii baan qaatay macnaheedu maaha shaqaad helaysaa markiiba maaha shaqaad samaysan kartaa markiiba noloshu horey u sii soconaysaa oo dadaalka halkaa inaad ka sii wadaan ayaan idinkula talinayaa. digrii iyo digri la'aanba noloshu waxay ku xidhan tahay dadaal iyo tacab. waxaan kaloo doonayaa ardaydii aan digriga qaadan in aanay niyad jabin. dad badan baa jiro adduunkaan digri qaadan oo guulaystay haddana macnaheedu maaha digrii baad weyday dadka kalaa kaa aqoon badan ama kaa maskax badan. digrigu waa qayb ka mid a sida baasaboorka loo qaato oo kale. marka dadkaasina waxaan kula talinayaa niyad jabina. haddaad tacliin doonaysaanna sii wata, haddaad shaqo abuuraysaanna abuura, haddaad shaqo raadsanaysaanna raadsada. waxaan doonayaa inaan ardayda maanta graduate garaysay iyo ciddiina daawanaysaba aan xusuusiyo ama dhammaanteen is xusuusino. qayb waxaa ka qaadatay digriyadaa qaataan nabadda. haddaanay nabadi jirin tacliin ma jirto. haddaan nabadi jirin digrii ma jiro. haddaan nabadi jirin ganacsi ma jiro. haddaan nabadi jirin horumari ma jirto. mustaqbalku waa nabadda. ha laga wada shaqeeyo meel walba nabadda. meel gaara maaha, gobol walba, dhul walba, qof walba mas-uuliyad gaara baa saaran siduu nabadda ay meel walba uga heli lahayd. qofkii nabaddiida waa qof mustaqbalka doonaya burburiyo. qofkii nabaddiida waa qof mustaqbalkiina baabiinaya. asalaamu calaykum. waxaa isna shirkadaha Dahabshiil Group ku ammaanay taageerada joogtada ah ee jaamacadaha siiso Professor Saleebaan gudoomiyihii hore ee jaamacadda Camuud. waxaase aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maanta wiilnawar fadhiyo Cabdirashiid Maxamed Saciid Ducaale shirkadda Dahabshiil oo ilaa imika ah deeq bixiyaha ama qaaran bixiyaha ilaahay baa deeq bixiye ugu ballaaran ee Soomaaliland laga bixiyo ee jaamacadda siinayna siyaadiyo. waan garanayaa oo maalintii jaamacadda la furayay wax lacagoon haynaa ma jirin. Soomaaliland halkan ay waratay maalintii la furayay madaxweynihii markaa joogay Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal baanu tagnayo waanu jaamacaddii baanu furaynaa nagala soo qaybka. madaxweyne waxaan xanuunsanayaa waa week toddobaadka oo halka xun baa hayay wuxuu yiri waan xanuunsanayaa waxa idin furi doona madaxweyne ku-xigeenka oo daahir riyaal ah iyo baarlamanku isla wixii baarlaman oo haday session bay ku jireen waa la joojiyay baa la yiri tagaa la yiri golihii wasiiradii cid hawl ku maqan mooy cid kale maalintaa kama maqnayn. taqriiban ilaa 1000 qof ayaa ka soo qayb galay. wax alla waxaan haynayna ma jirin. hargeysaan tagayo kaalarkii baan qaybinayay waxaan u tagay Maxamed Saciid Ducaale waa Dahabshiil marka waan casuumaadi kaarkaasaan rusin maxay tahay usul waa jaamacad Camuud ka furayna miyaa haysataan waxaad ku qabsataan maasaani waan u sheegay ma xoogay xoolaana waan haynaa 500 kale waan haynaa
berigaa lacagtu qiimay lahayd inan buu yeeluu $2,000 u qoray marka soo siyaasa kaash ka soo siiya oo lacagtu way badnayd intii way qaadan wadaceli dhul bay qaadan weyday weliba waxay ugu daray lacagtaana waad qaadan doontaan ilaa jaamacadda intay jirta waad qaadan doontaa haddii alla idhaahdo marka waa dahabshiil sharikaddu maalintaa ilaa maalinta aqalkan aan ku jirno wuxuu ahaan jiray shaybaadh yar shaybaadh buu ahaan jiray dheer sidaa u dheeroo halkaa ku jooga gebigiisaba dib baan u duminay aqalkan shay muddo laga joogay imaka 8 sano ayaan dib u duminay lacagtii lagu dhisay dahabshiil baa bixiyey waxaa kaloo uu siiyey hadda uu tamarka shahaadooyinku inuu sheegi server bahal weyn oo lagu keydiyo oo u ah server engineerinka iyo IT-da labadaba ayuu la siiyo qiimihiisa imaka 800 oo ka badan yahay halkan noo yaal oo shaqeeya oo la rakibay imaka la shaqeeyay baa isku la siiyey wuxuuna siiyey waxaa kaloo ka qayb galay sidaad u arkayseen ama saakaba la furayay kulliyadda caafimaadka ayaa hooygii labaad loo dhisay oo kambaskii hore mid ku dhow runtii la dhisay lacagtaan of course deeqdii waa gooni deeqdii way fara badan yihiin laakiin dayn ahaan aan uga qaadanay markaan codsigaa samaynay intii aan joogay bay ahayd uu noo fududeeyey markii baashii lasoo process gareeyay baan xilkan wajah doctor maxamed alismi uu ku bilaabay marka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa daynkiina waad arkayseen lacagtii ugu deeqay oo shahaado lagu sii doono insha allah guddoomiye ku dhawaaqi doono